afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliland Faysal Xiise Cilmi ayaa wax laga xishoodo ku tilmaamay eedowga yimi xisbiga wadani kaasi oo ku aadanaa in xisbiga wadani ay sheegeen in saraakiil ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliland uu xisbiga kulmiye u magacaabay xilal kala duwan oo ka tirsan xisbigaasi waxaanu arintaasi ku tilmaamay wax laga yaqiiqsoodo isla markaasina aanay ahayn mid u qalanta mansabka ciidannimo in lagu eedeeyo isagoo xusay in xisbiga wadani uu maalmihii u dambeeyayba eeday istabajooga ku waday ciidamada booliska Soomaaliland balse taasi waxa uu ka waaniyay xisbiga wadani in ay ku ciliyaan mar kale isagoo xusay in ciidanka boolisku ay yihiin kuwa dhex u ah dhammaanba qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana ay u simeeyeen asxaabta qaranku afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliland Faysal Xiise Cilmi oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yiri marka hore Ilaahay waa mahadle waxaan maanta halkan isku nimid inaan warbixin ka bixino dhawaan warar aan jirin oo ay xisbiga wadani ku qoreen warbaahinta iyo baraha bulshada warkaas oo ahaa in saraakiil ka tirsan ciidanka booliska oo xisbiga kulmiye u magacaabay jagooyin kala duwan oo degmooyinka magaalada Hargeysa warkaasi waa war been ah oo aan sariir hatan lahayn oo war in dalaana oo xaqiiqada ka fog oo aan laga fiirsanin nimankaas la magacaabay kama tirsana ciidanka booliska waa niman muwaadiniina hadii la magacaabayo xisbiga taala hase yeeshee ciidanka booliska ma aha labadaas waa laba noo sheego tan labaad waxaan leenahay xisbiga wadani mar hore dhowr jeer horena waan ka sheegnay halkan waxaan leenahay war ciidamada arrimahooda faraha kala baxa ma wanaagsana mana fiicna in had iyo jeer laga hadlo arrimaha ciidamada xisbiga wadani iyo xisbiga kala gidigooda waxaan leenahay war arrimaha ciidamada laga fiirsado midda kale xisbiga wadani gaar ahaan waxa weeye waa inuu wuxuu sheegayaa waa inuu ka fiirsadaa waxa warkaas war in dhalana oo aan laga fiirsanin oo xaqiiqada ka fog